dhalinyaro ku soo dhowaada muuqaalkeenna maanta bilowga filimkeenna waxaan aragnaa markab dagaal oo laga leeyahay dalka hindiya kaasoo hadda jooga badda khaliijka ciidamadanna waxaa hogaaminaya jenaraal naqiib bakshiy meeshaanna hadda wuxuu uga sheekeeyey taariikhda guushii ay hindiya ka gaartay bakistaan dagaalkii labada dal dhex maray sannadii dii jenaraal bakshiyna meeshaan wuxuu ka sheegay guushaa sababteeda keliya inaysan lahayn ciidamada difaaca dalka balse waxaa jiray unugyo sirdoon kuwaasoo noo suurtageliyey inaan xog badan ka ogaano dowladda isla wakhtigaana jenaraal bakshiy meeshaan wuxuu uga hadlay sheekada haweenay basaasad ahayd taasoo ka dambaysay guushii ay dagaalkaa gaareen dalka hindiya markaan ku laabanno sannadii diina gudaha xarunta dhexe ee ciidamada bakistaan taliya barsaad ayaa hadda la hadlaya ciidamadiisa isagoo u sheegaya in la qabtay basaasiin ka tirsan sirdoonka hindiya intaa kadibna barsaad wuxuu la kulmay saaxiibkiisa ugu dhoweeyey hidaayad qaan kaasoo ahaa muwaadin hindiya mar kastana asaga wuxuu u soo gudbin jiray xogaha hidaayadna hadda wuxuu asaga la wadaagay go'aankiisa ah inuu ka fadhiisto shaqadan maadaama aysan xaaladiisa caafimaad ay hadda wanaagsanayn sidoo kalena uu ka jiran yahay sanbabada barsaadna markuu maqlay waxa ku dhacay saaxiibkii aad buu u murugooday asaga haddana hidaayad wuxuu lahaa damaca in gabadhiisa samanta uu u guuriya iqbaal kaasoo ahaa sargaal ka tirsan ciidamada bakistaan sababtoo ah maadaama uu hadda jiranaa asaga ma uusan sii wadi karin hawshiisa sirdoonka dhab ahaantiina meeshaan waxaan ka ogaanaynaa hidaayad asal ahaan inuu ahaa askari ka tirsan sirdoonka hindiya kaasoo si aan loo dareemin ku dhex milmay ciidamada bakistaan sidoo kalena asaga waxaa loo arkaya inuu u wada shaqeeyo labada dal inkastoo hidaayad uusan weligii bakistaan la safan mar walbana ayaga wuxuu ugu dhex jiray inuu xog ka ogaado haddana wuxuu la kulmay ninkii uu xogta u gudbin jiray maadaama uu hadda jiranaana wuxuu u gudbiyey warqaddiisa istiqaalada si uu ugu sii gudbiyo madaxda sirdoonka ee hindiya korneyl khaalidna xilligaa ninkan wuxuu u soo jeediyey gabadhiisa samanta inuu ku beddelo hawshiisa si macluumaad dheeraada ay uga ogaadaan sirdoonka bakistaan marka horena ninkan wuxuu iska diiday arrinta sababtoo ah samanta waxay ahayd 20 jir sidoo kalena waxay wax ka baranaysay jaamacadda delhi laakiin wadahadal kadib ninkan wuxuu asaga ku qanciyey inay hawshaa qaban karto gabadhiisa muddo kadib markuu gabadhiisa la kulmana wuxuu u sheegay inay ka beddesho hawshiisa sirdoonnimada ayadoo ka dhex shaqaynaysa sirdoonka bakistaan intaana waxaa dheeree si aan kaaga caawiyo hawshaada waxaan kugu darayaa wiil uu dhalay mid ka mid a saraakiisha ciidamada bakistaan si aan laguu fahmin adiga wiilkaana magaciisa waxaa la yidhaahdaa iqbaal waana sargaal ka tirsan ciidamada bakistaan sida aabbihii oo kale sidoo kalena ninkan gabadhiisa wuxuu ka codsaday inay la kulanto korneyl khaalid kaasoo ah madaxa sirdoonka dalka hindiya marka horena samaynta ma aysan rabin inay qabato hawshaan halista badan sidoo kalena hooyadeed ma aysan rabin gabadheeda in loo diro dalka bakistaan laakiin markii habeenkaa oo dhan ee arrintaa ka fikiraysay samanta ugu dambayntii waxay go'aansatay inay aqbasho howlgalkii uu u soo bandhigay aabbaheed ayadoo tixgelinaysa caafimaadka aabbaheed sidoo kalena jacayl badan u qabta dalkeeda haddana waxaa tusaale ayada u noqday aabbaheed kaasoo in badan u soo adeegaya dalkiisa sidoo kalena waxay rabtay in dalkeeda ay u hurto wax kaste muddo kadibna samanta waxay la kulantay khaalid iyo caawiyihiisa bakshiy interfiewga kadibna samanta islamarkiiba waxay qaadatay badan inkastoo marka hore ay dhibaato kala kulantay arrintaana markii dambe waxay awoodday inay ka gudubto caqabad kaste ugu dambayntiina si fiican ayay u qaadatay tababarkeeda sidoo kalena waxay xifdisay lambaro iyo koodad badan samantana intaa kadib waxaa la baray toogashada iyo siday u difaaci lahayd nafteeda sidoo kalena waxaa la baray inay ka takhallusto bartilmaameedkeeda ayadoo caqabad kasta ka gudbaysa markii wax walba diyaar looga dhigay ayadana ugu dambayntii waxaa la isku guuriyey samanta iyo iqbaal si kastaba ha ahaatee samanta aad uguma dhowaanin iqbaal waayo mar walba waxay iska ilaalinaysay in la ogaado xogteeda sidoo kalena mar kasta oo ay xog hesho waxay diyaar u ahayd inay madaxdeeda la wadaagto dhinaca kalena mid ka mid a adeegayaasha guriga kaasoo la yidhaahdo iqbaal ayaa mar walba ka shakin jiray dhaqdhaqaaqa gabadha asagoo kor kala socday xaaladeeda laakiin samanta waxay ahayd qof loo soo tababaray inay diiradda saarto hadafkeeda sidaa darteedna wax cabsiya kamaysan qabin in la ogaado qorshaheeda had iyo jeerna waxay isticmaali jirtay musqusha si ay u dirto macluumaadka ay ka ogaato sirdoonka iyo madaxda bakistaan muddo kadibna maalin maalmaha ka mid a samaynta waxay suuqa u raacday muniirana waxay ahayd xaaska walaalka ka weyn iqbaal kaasoo la yidhaahdo maxbuub samantana xilligaa waxay yeeshay fursad ay kula kulanto sirdoon hindiya kuwaasoo ka shaqaynaya suuqa intaa dabadeedna waxay la xiriirtay taliyaheeda kabiir samantana xilligaa waxay la wadaagtay inay ka socoto hidaayad sidaa darteedna macluumaadkayga waa inaad la wadaagtaa madaxda sare gabadhaanna mar walba waxay aad uga taxadaraysa in la ogaado inay basaasad
tahay ayada. Muddo kadibna xogteeda oo kooda waxay gaartay xafiiska sirdoonka ee Hindiya. Koodkaana wuxuu ka koobnaa magacyada jabhadaha Bakistaan ee taageersan dalka Hindiya. Inkastoo iskudubaridka arrintaa uusan ahayn mid saxna, fallaagadu xilligaa waxay ka soo baxeen xaruntooda. Haddana waxaa soo baxday nin ka mid ah saraakiisha sare ee ciidamada Bakistaan inuu ka tirsan yahay sirdoonka Hindiya, sidoo kalena uu Samantha ka caawinayo howlgalkeeda. Dhinaca kalena ciidamada Bakistaan xilligaa waxay ku guulaystay inay ogaadaan goobta ay degan yihiin jabhadda ay aasaastay Hindiya. Saidna xogtaa markuu ogaaday General Bragg wuxuu ku ammaanay arrinta, maadaama uu howl wanaagsan qabtana waa la dallacsiiyey asaga. dhab ahaantiina generaalkan aad buu ugu farxay arrinta, isla markiina wuxuu u mahadceliyey saaxiibkii Hidaayad maadaama uu asaga ka caawiyey inuu xaqiijiyo guushan. Intaa kadibna dadku wuxuu baray Samantha, taasoo ka mid ahayd dadkii asaga ka caawiyey fulinta hawshan. meeshaana sidoo kale waxaa joogay rag kale oo ka tirsan sirdoonka Hindiya, kuwaasoo horay u yaqaanay gabadhan. intaa dabadeedna Iqbaal wuxuu bilaabay inuu waqti la qaato Samantha, sidoo kalena wuxuu u sheegay hooyadii in laga haayo anqowga. intaasoo keliyana ma ahani, gabadhan waxay ku guulaysatay inay aaminaan sadohdeed iyo ninkeeda. maalin maalmaha ka midana General Sayid ma uusan dareemaynin wax wanaaga. intaa kadibna Samantha wuxuu ka codsaday inay u soo xirto qolkiisa gaarka ah, kaasoo uu kula kulmi jiray dadka madaxda. Samanthana ayadoo fursadda ka faa'iidaysanaysa, qolkaa waxay ku xiratay qalab muhiima. arrintaanna waxay u samaynaysay si ay u dhagaysato shirarka muhiimka ah ee qolkaa ku yeeshaan saraakiisha ka tirsan ciidamada Bakistaan. sidoo kalena gabadhan waxay koobiyeysay furaha qolka si ay mar walba ay u baahato ay u gasho qolka. marka loo eego gabadhan xirfadeeda iyo kartideedana waxay ka mid ahayd sirdoonnada ugu fiican adduunka. si kastaba ha ahaatee, muddo kadib waxaa dhintay aabbaheed xanuunkii haya awgii. intaa dabadeedna aad bay u niyad jabtay ayada, laakiin Iqbaal ayaa mar walba isku dayaya inuu ka farxiyo gabadhan. arrintaana waxay keentay markii dambe in jacayl dhaba ay u qaado asaga. maalin maalmaha ka midana Muniira iyo qaar ka mid ah xaasaska saraakiisha ciidamada Bakistaan ayaa hadda raadinayeen macallimad muusig si ay wax u barto carruurtooda, waxayna arrintaa u samaynayeen si ay uga qayb galaan xafladda sanadlaha ah ee militariga. iyadoo aan rabin inay dhumiso fursaddaana, Samantha si mutadawacnimo ayay isugu xilqaantay inay carruurtaa barto muusiga. arrintaa darteedna Samantha hadda waxay awooday inay gasho guryaha saraakiisha ciidamada Bakistaan oo dhan. iyadoo fursadda ka faa'iidaysanaysana waxay awooday inay si fudud u gasho guryaha saraakiisha Bakistaan, kuwaasoo uu ku jiray General Bey. xilligaana waxay awooday inay hesho macluumaad ku saabsan ciidamada Bakistaan inay doonayaan inay weeraraan markabka diyaaradaha xambaara ee dalka Hindiya. sidoo kalena waxay heshay sawirrada maraakiibta beegsanaysa markabka si ay u burburiyaan asaga. laakiin intay hawsheeda waday waa la qabtay ayada, balse nasiib wanaag dhoolla caddaynteeda ayay ku qarisay ficilkeeda si aan loo fahmin ayada. markay xogtaa heshay kadibna Samantha waxay la wadaagtay madaxdeeda, kuwaasoo macluumaadkaa sii gaarsiiyey ciidamada badda ee Hindiya. laakiin ciidamada badda ee Hindiya si fudud umaysan rumaysan macluumaadka, balse Korneyl Khalid ayaa ayaga ku qanciyay xogtaa inay tahay mid la isku halayn karo. muddo kadib markii la gaaray maalintii dabaaldegana, carruurtu waxay soo bandhigeen masraxiyad aad u sarraysa. haddana arrintan waxaa lagu ammaanay Samantha. intii lagu guda jiray xilliga cashadana, Sayid iyo wiilkiisa waxay ka wada hadleen qorshahooda in Hindiya laga weeraro bad iyo dhulba, iyadoo aysan arrintaa ogaanayn cid kale. laakiin xilligaa meeshan waxaa joogtay Samantha, waxayna maqashay macluumaadka oo dhan. wax yar kadibna mid ka mid ah shaqaalaha generaalka ayaa meeshaan yimi asagoo sida faylal muhiima. Samanthana markay arrintaa aragtay ma aysan rabin inay lumiso fursadda ay ku heli karto macluumaadka. xoogaa kadib markay generaalka iyo Iqbaal ay guriga isaga tageen, Samantha waxay gashay qolka iyadoo isticmaalaysa furihii koobiga ahaa, isla markiina waxay soo qaadatay faylasha wayna koobiyeysatay dukumiintiyada. intaa kadibna waxay u dirtay xafiiska sirdoonka ee Hindiya. laakiin markay xogtaa diraysay meeshaan waxaa ku soo laabtay gacanyaraha, balse ma uusan arkin ayada. intaa kadibna Cabdul wuxuu raadiyey faylasha, laakiin ma uusan helin asaga. intaa kadibna Samantha si degdega faylasha waxay ugu soo celisay meeshoodii, sababtoo ah xilligaa ma aysan haysan wakhti ku filan kaasoo ay wax kasta ku hagaajin karto ayada. muddo kadibna generaalku kama shakin ayada, balse gabadhan waxaa ka shakiya Cabdul, laakiin wax caddayna kumuusan haynin ayada. maalin maalmaha ka midana Cabdul wuxuu arkay signal galaya qolka gabadha, sababtoo ah xilligaa gabadhan waxay hilmaamtay inay qariso aaladdaas. markuu hadda ogaaday gabadhan
inay tahay basaasad u shaqaysa hindiyana isla markiiba wuxuu isaga cararay meeshan si uu xogtaa ugu sheego generaalka. laakiin Samantha maadaama ay xilligaa ka welwelaysay in la ogaado xogteeda waxay ciirsatay ninka balse way qaban weysay asaga. intaa kadibna waxay soo kaxaysatay gaari meeshaa yaalay waxayna ku dhufatay Cabdul. arrintaana waxay keentay in dhaawac xun uu soo gaaro ninka. intaa dabadeedna waxay isaga soo tagtay meesha. muddo kadibna waxay ku soo laabatay guriga. dhinaca kalena Cabdul xilligaa waxaa loola cararay isbitaalka. Samanthana xilligaa waxay dareemaysay inay dembi gashay maadaama hadda si aan loo ogaanin qorshaheeda ay dhibaato ugu geysatay Cabdul. intaa kadibna Samantha waxay xog dheeraada la wadaagtay madaxdeeda ayadoo si fiican ugu sharaxaysa sida loo diyaariyo weerarka ay ciidamada Bakistaan ku qaadayaan markabka Hindiya kaasoo xilligaa taagnaa xeebta Bengaal. xogta cadda markii loo sii gudbiyey ciidamada badda ee Hindiyana dhab ahaantii ma aysan rumaysan macluumaadka. goob kalena Maxbuub oo ahaa walaalka ka weyn Iqbaal markuu maqlay Cabdul inuu shil galay si degdega wuxuu u aaday isbitaalka si uu u booqdo asaga. markuu Cabdul la kulmana wuxuu asaga u sheegay magaca Samantha intuusan dhiman ka hor. intaa kadibna Maxbuub wuxuu aad uga xumaaday geerida Cabdul. tan iyo markaana wuxuu bilaabay inuu ka shakiyo Samantha. isla waqtigaana wuxuu la xiriiray xafiiska dambibaarista si uu wax badan uga ogaado dhimashada Cabdul. maalin maalmaha ka midana Samantha ninkeeda waxay weydiisatay inuu u ogolaaday inay aado suuqa si ay u soo iibsato dhar ay ku tukato ayada. Iqbaalna isla markiiba xaaskiisa wuxuu u ogolaaday arrinta. muddo kadib markay suuqa tagtana si degdega waxay ula xiriirtay madaxdeeda ayadoo la wadaagaysa xaaladda ay ku jirta ee foodada. sidoo kalena Maxbuub hadda wuxuu bilaabay inuu iga shakiyo aniga. intaa dabadeedna taliyaheeda wuxuu ayada u sheegay inay ka takhalusto qof kasta oo isku daya inuu carqaladeeyo howlgalkeeda xitaa hadduu noqdo dumaashigii. wicitaanka kadibna Samantha waxay heshay suntaa qofkii cunana waxaa hubaala inuu si degdega u dhimanayo sababtoo ah qofkii loo isticmaalo wadnaha ayay ka qabanaysaa ayada. dhinaca kalena Maxbuub xilligaa wuxuu tegay xafiiska si uu baaritaan dheeraada ugu sameeyo dhimashada Cabdul. laakiin Samantha markay ninkaa waddada ku wada kulmeen isla markiiba lugta waxay uga mudday dalladeeda isagoo aan ka shakin ayada. wax yar kadibna suntaa waxay gaartay Maxbuub. intaa kadibna markuu baaritaankiisa dhammaystay markuu maraya jaranjarada ayuu dhulka ku dhacay sidaa ayuuna ku dhintay ninka. xoogaa kadibna waxay ku soo laabatay xafiiska isla markiina waxay baabi'isay dhammaan cadaymihii la xiriiray dhimashada Maxbuub. sidoo kalena qolka Cabdul xilligaa waxay dhigtay qalabka wax lagu basaaso si ay ula socoto dhaqdhaqaaqa qolka. meel kalena Saayid iyo Iqbaal waxay ka xumaadeen geerida kediska ee ku timid Maxbuub. xilligaana sirdoonka Bakistaan waxay ogaadeen basaasiin Hindiya inay ka dhex howlgalayaan dalka Bakistaan. arrintaa darteedna xilligaa waxaa la xiray wakiiladii caawinaya Samantha. intaa kadibna Samantha xaaladeeda si degdega waxay ula wadaagtay qaalidna markuu arrintaa maqlay Bakshi wuxuu ku amray inuu diyaariyo kooxda gargaarka degdega ah si Samantha looga soo qaado Bakistaan. dhowr maalmood kadibna kooxda dabagalka ee Bakistaan waxay yimaadeen guriga Generaal Saayid si ay baaritaan ugu sameeyaan goobta uu dembiga ka dhacay. intay baaritaankooda wadeenna waxay qolka Cabdul ka heleen qalabka wax lagu basaaso iyo taleefanno kala duwan. dhinaca kalena Samantha xilligaa waxay ka qoomameynaysay dilkii ay u geysatay Cabdul si aan loo ogaanin xogteeda. maalintii xigtana Samantha iyo Iqbaal waxay booqdeen taliyihiisii hore laakiin Iqbaal hadda ma uusan ogeyn ninkan inuu u shaqaynayo Hindiya. sidoo kalena Qaalid Samantha si qarsoodiya wuxuu u siiyey kood aan la fahmayn si ay labadooda ugu wada kulmaan si qarsoodiya. intaa kadibna waxaa la sii waday baaritaanka. Muniirana xilligaa waxaa u yartay Soraya taasoo ahayd guddoomiyaha haweenka ciidamada qalabka sida. sidoo kalena naagtaa su'aale ayay weydiisay Samantha. gabadhaanna Soraya waxay u sheegtay Cabdul in laga yaabo inuu ahaa basaas u shaqeeya Hindiya maadaama qalabkaa laga helay qolkiisa. intaa kadibna Soraya waxay wacday kooxda dambibaarista waxayna ku amartay Muniira in loo soo diro gurigeeda. meel kalena Generaal Saayid markuu ogaaday cadaymaha laga helay qolka Cabdul kuwaasoo tilmaamaya ninkaa inuu ahaa jaajuus u shaqeeya dalka Hindiya aad buu u naxay asaga sababtoo ah weligiis horay umuusan fikirin qof uu sidan ugu kalsoon yahay inuu khiyaanayo asaga. si kastaba ha ahaatee Iqbaal xilligaa qolka Cabdul wuxuu ka helay baayalkii ay lugta ku xiranaysay Samantha isla markiina wuxuu xaqiiqsaday gabadhan inay tahay basaasad u shaqaysa Hindiya. wax yar kadib markuu guriga yimina wax kastoo arrintaa ku saabsan wuxuu weydiiyey xaaskiisa laakiin Samantha markay hadda ogaatay in la ogaado sirteeda waxay baskoolad ku qabatay asaga. intaa kadibna iyadoo ilmeynaysa waxay asaga ku tiri ma doonayn inay dhacaan waxaanoo dhan balse ma jiro aniga wax iiga muhiimsan waddankayga. intaa dabadeedna gabadhan waxay aaday guriga Qaalid si ay ula kulanto asaga
meel kalena Iqbaal dhacdadan wuxuu la wadaagay aabihii. Jenaraal Saayidna markuu hadda arrintaa maqlay aad buu u xanaaqay asaga, sababtoo ah gabadhan yar hadda waxay burburisay qoyskiisa, sidoo kalena waxay khatar gelisay waddankiisa. Meeshaanna wuxuu ka fahmay Hidaayad, inkastoo uu horay u ahaa saaxiibkii, sidoo kale ninkaa inuu ahaa basaas u shaqeeya Hindiya. Ugu dambayntiina hadda wuxuu gartay inuu khatar ku jiro dalkiisa qaladkiisa awgii. Meel kalena Samantha waxay la kulantay Khalid si uu waddankeeda ugu qaado ayada, laakiin xilligaa goobtaa waxaa ku hareeraysnaa sirdoonka Bakistaan iyo Iqbaal, kuwaasoo doonaya inay qabtaan gabadhan. Khalidna markuu arkay xaaladda xun oo ay ku jiraan ayaga, raggiisa wuxuu ku amray inay bambagacmeed ku tuuraan askarta si loogu kala cararo goobta. Nasiib darrase meeshaa waxaa ku dhintay dad badan oo ay ku jiraan Iqbaal iyo Samantha. wax yar kadibna waxaa la ogaaday Samantha inay weli nooshahay ayada, sababtoo ah meesha ma haysan tegin ayada. Waqti ka horna booskeeda waxaa lagu bedelay gabar kale oo sirdoona, arrintaa darteedna waxay ka badbaaday qaraxa. Xoogaa kadib markay ogaatay Khalid inuu dilay ninkeedana, aad bay ugu xanaaqday asaga, sidoo kalena waxay aad ugu murugootay inuu dhintay ninkeeda. laakiin Khalid hadda wuxuu ayada u sheegay khatartu inay qayb ka tahay shaqadooda. Muddo kadibna Samantha si guul leh waxay dib ugu soo laabatay Hindiya, laakiin intay waddada maraysay way suuxday ayada, sababtoo ah hadda waxaa soo baxday inay uur leedahay ayada. intaa wixii ka dambeeyana waxay ku dadaalaysay siday u barbaarin lahayd cunugeeda. hawsheedaana furnimada aana ma noqon mid khasaare ah, sababtoo ah dalkeeda Hindiya waxay ku guulaystay inay ka hortagaan weerarkii ay ku soo qaadi lahaayeen Bakistaan. sidoo kalena Hindiya intuu dagaalkaa socday waxay ku guulaysatay inay quusiso mid ka mid a gujisyada Bakistaan. sidaana hadda waxaa ku fashilmay qorshihii muddada laga soo shaqaynaya asaga. filimkeennina meesha ayuu ku soo dhammaaday. haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan muuqaalkeenna laag saar, sidoo kalena janalkeenna ku soo biiro subscribe waa ku mahadsan tahay la joogistaada.